السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن خيارتنا داونيسا ay goob kasto nagala jaan qaadaysaan ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka wacyi anigu waa Faginda Cabdi Cumar ayaa idin warramaya qodobadan idin hayno kuwooda ugu mudan waxa kamid ah madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka qayb galay madal looga doodayo doorashada ka dhici doonta Soomaaliya waxa ku wehelinayay madaxdii ugu sareysay ee soo martay xafiiska Puntland iyo siyaasiyiin kala duwan kulankan ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen oo gogol xaar u noqon doona kulamo taxana noqonaya oo laga doodi doono nooca doorasho ee ka dhici karta dalka ayaa ka qabsoomay xarunta cilmi baarista BDRC magaalada Garowe waxa kulankani ka soo qayb galay madax kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxdii hore ee dawladda Puntland intii nooleed iyo xildhibaano iyo senataro ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiin xilal ka soo kala qabtay Puntland iyo Soomaaliya kulankan ayaa la sheegay inay sii socon doonaan ilaa laga soo saaro habraac ay Puntland isku raacsan tahay oo qeexaya habka doorasho ee macquulka ee ka dhici kara Soomaaliya kulankani waxa uu ku soo aadayay xilli ay soo dhawaatay doorashadii Soomaaliya ilaa haddana aan xal loo helin xiisadda siyaasadeed ee ka dhaxaysa Puntland iyo dawladda dhexe federaalka Soomaaliya madaxweynaha Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magacaabay wasiiro iyo wasiiro ku-xigeenno warqad qoraal ah lagu baahiyay barta Facebook ee ku leedahay madaxtooyada Puntland ayaa u qornayd sidan waxa injineer Cabdullaahi Cali Xirsi loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska waxa injineer Maxamed Xaaji Saalax loo magacaabay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxa Cabdi Ibraahim Warsame Qowdhan loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda waxa Ismaaciil Salebaan Geele loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga waxa Axmed Ismaaciil Qolambe loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta macdanta waxa Saynab Ismaaciil Maxamed loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo beeraha isbeddelka cimilada waxa Maxamed Axmed Xasan loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha waxa Maxamed Axmed Ismaaciil Deero Dile loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga iyo horumarinta dhaqaalaha odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda degmada Taleex ayaa ku baaqay in la xaliyo khilaafka madaxda sare ee Puntland waxay fariin u direen siyaasiyiinta iyo waxgaradka ku sugan magaalada Garowe si loo xaliyo khilaafka ka dhaxaloosan madaxda sare ee Puntland waxay ujeedku tahay oo loo qabtay xafladu waxay tahay bariyahanba magaalada madaxda Puntland Garowe arrimo ka socda oo laga soo dulduulayay oo lagu ka bidaamayay in lagu ka bidaamayay khilaaf aad iyo aad u heer sareeya oo madaxda ka dhaxeeya madaxda u sareeya gobolka u sareeya Puntland u sareeya dhex taagnaa khilaafkaasi dad badan ayuu aad iyo aad uga calaysiyay lama jeclaysan meel kastaba waxa la wixii maqlaadin iyo dibadba waa ka xumaadeen waa ka caroodeen maalin walba khilaaf taagan iyo hadal taagan iyo isgaba taagan aad iyo aad baa looga carooday dadku ugu xumaaday cidna ma ayaan raali gelin haddana waanu ka xunnahay boqolkiiba boqol waxaanu ka xunnahay khilaafka maanta ka taagan Garowe ka taagan waxaa baaqayn yahay wax dana oo ku jira ma jiraan burburka Puntland iyo dhibaatada Puntland iyo haddii waxa ka socda dani kuma jirto wax faa'iido oo ka soo socdaana ma jiraan waxaan khasaare ahayn iyo burbur waxaan ku baaqaynaa hal la joojiyo oo madaxda ugu yeedhana oo madaxweynaha la hadlayna oo madaxweyne ku-xigeenka la hadlayna hal la daayo khilaafka maalin walba taagan oo maalin walba haddii helmaayo loo fadhiisanayo oo maalin walbaba cid lagu ereeyo waxaan leenahay hal la joojiyo ma qabato meesha ma qabato Puntlandna sida horumar ku gaari mayso dhibaatooyin badan baa jira topic hadda aynu ka hadlayno oo meesha isugu nimi ummadda tan ay ka hadlaysaa waxa weeye waa masiirkii Puntland lagu dhisay ee ummadda ka dhaxeeyay ee la wada lahaa oo hadda u muuqda in cid gaar ahaaneed ay sidoo doonto u maamulanayso oo ku tagrifaleyso ama ku xadgudbayso masiirkii ummadnimo ama maamulnimo ee Puntland ee ummadda walaalaha ay wada dhalatay ay wada dhisatay Puntland waxay leedahay dastuur sharci ah waxay leedahay saami qayb waxay leedahay waxyaalo badan oo ajanta ah oo ummaddu wada qoratay markii la dhisanayo aan cidina dhaaf karin
haddar waxa ay u muuqataa madaxdan halkan ninkaa haddar puntland ugu sarreeya oo madaxweynuhu tobikii sidii loo wada dhistay maamulka inuu wax ka bedeli oo puntland ay ku socoto hadday waddada ay marayso waddadii burburka ay hayso dhammaan waxgaradka puntland hadday tahay isim iyo siyaasiba waxaanu kula talinaynaa ama ugu baaqaynaa arrinta taagan in si deg dega wax looga qabto oo nabadgelyo lagu soo dabaalo oo la ilaaliyo puntlandtii la wada lahayd oo hartooda dhistay marka waxaan leenahay hawshaa wadahadal ha lagu dhammeeyo miiska wadahadalka hawshaa ha lagu celiyo khilaafkan ha la joojiyo dan inooma aha dadweynaha reer puntlandna dhammaantood dan ooma aha arrintan hadda maanta taagani arrintaasaanu soo jeedinaynaa isu imaadkayguna maanta uu ku salaysan yahay muhiimadaanu maanta isugu nimi sidaas weeye waxaanu cod gaaban iyo cod dheer baanu ku leenahay hawsha maanta taagan waxa laga bedelo waynu wada leenahay puntland waynu wada dhisannay dastuur iyo nidaam iyo kala dambeyn baa jirta noole intuu leeyahay lagu tixgeliyey saas baanu nagu soo jeedinaynaa baaqiguna maanta saasuu ku salaysan yahay tiradii ugu badnayd oo xoolo noole ayaa la gaarsiiyey guddiga gurmadka ee Qardho xoolaha kan ayaa ka yimi degmada Jiriban ee gobolka Midug anoo ku hadlaya afka degmada Jiriban maamulka golaha deegaanka shacab dhamaan waxaan tacsiid tiiraanyalo aan uga wadaa reer Jiriban walaalahan reer Qardho oo biyihii ay harqiyeen waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun intii ka dhimatay ilaahay waxaan u baryaynaa samir iyo iimaan inuu ilaahay ka siiyo intii ku hanti meeshana ilaahay waxaan u baryaynaa inuu khayr iyo khayr ugu bedelo insha Allah halkan waxaan wada maantay anoo wakiil uga ah degmada Jiriban iyo deegaanada hoos yimaada ari aansnari walaalihiin ugu deeqa oo ku taakuleeya inkastoo aan soo daahnay taasna sabab waxa waahay laamiga ka fognaay ari tiradoodu tahay 350 insha Allah baan rajacay inaan ku wareejino hadii wax tarimayso 350 meesha de xoolada ma ku baabay laakiin waxaas niri walaalihiin maadaaba ay yihiin dad isku dhow xigtaatiin hadii intaas baan soo garanay ay tabartay noqotay waxaan ka mahad celinaynaa runtii sida walaaltinimada iyo ehelnimada leh xubno ka tirsan guddiga gurmadka Qardho ayaa si wada jir ah ugu mahad celiyay bulshada degmada Jiriban iyo maamulkooda mugga ka qaateen waa dareemeynaa waxa weeyaan Jiriban waxay jirdhaa meel aad u fog oo halkan hadii la yeelaa 600 kilomitir wax ku dhow bay ku jirdhaa marka waxaan leenahay ma soo daahin runtii waa soo dadaasheen wax kasta waxa ka fiican dadaalka aad ku bixiseen arigan saan dareemaya ama aan la socday waxa ururinayseen bishii Ramadaan oo dhan baa ururinayseen arigaas oo neef meel ugu tirsan baadiye laga soo ururinayay marka aad baan ka mahad celinaynaa dhammaan bulshooyinka reer Jiriban maamulkii iyo shacabkii gabdhihii dhalinyaradii waxgaradkii hawshaas soo abaabulay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo ilaahu cimrigooda barakee ilaahu camalkooda barakee ilaahu aqligooda barakee ilaahu awlaadooda barakee ilaahu xaasaskooda barakee ilaahayow awlaadda baari uga dhig ilaahu odayaasha baari uga dhig ilaahayow khilaaf iyo shar ilaahu ka dhex saar ilaahu midnimada Jiriban ilaahu kor yeel waxaan maantay halkan uga mahad celinaynaa degmada Jiriban iyo deegaanka dadka degmada Jiriban oo 350 neef oo ari ah u keenay gurmadka degmada Qardho oo fatahaaduhu ay ka dhaceen arrintaas oo uu abaabule iyo isku dubaride iyo horkaca ka ahaa gudoomiyaha dhalinyarada degmada Jiriban Master Biix degmada reer Jiribanna waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantiin ilaahay haydin barakeeyo xoolihiina Allah barakeeyo xoogiina Allah barakeeyo xiskiina Allah barakeeyo xaasaska Allah barakeeyo hawadiina Allah barakeeyo aad iyo aad baan idinku mahad celinay shirkadda Haas ayaa magaalada Gaalkacyo ka hirgelisay maqaaxi lagu sameyn doono macmacaanka xaruntan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo nooceeda ah oo shirkadaha waaweyn ka sameeyaan magaalada Gaalkacyo waxa aad u soo dhaweeyay waxgaradka magaalada Gaalkacyo waxaynu dhex joognaa meeshan quruxda badan oo ay dhiseen shirkadda Haas oo ay maal badan ku bixiyeen waa shirkaddii ugu horeysay oo meel quruxdan leh samaysay gobolka Mudug marka hore waxaan dadka Mudug jooga ka codsanayaa in la tixgeliyo dadka halka maalgashiga ku samaysay inaynu soo dhaweyno oo walaalnimo iyo ehelnimo aynu tusno
oo magaceenna aan ilaalinno magaca gobolka mudug qof kasta oo gobolka mudug jooga shirkaddan abaal bay ku leedahay waayo waxaa ka shaqaynaya 20 wiil baa ka shaqaysa 20 wiilna intay masruufaysa waad garan kartaa marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shirkaddahaas oo xaruntan quruxda badan oo runtii waxa weeye magaalada bilicdeeda ka qayb qaadatay waa u mahadcelinaynaa kambanigahaas sida sharafta leh oo u soo siyaadiyey bilicda quruxda badan iyo adeegyada tirada badan oo ay ka mid yihiin shidaalkii kafeteriyadii labaajadii subermarketkii wax walba ku soo siyaadiyay aad baan ugu mahadcelinayaa Somaliland ayaa joojisay dhammaan isocodka gudaha gaadiidka dadweynaha iyo booqashooyinka deegaanada xilliga ciida waxaana darawalada gaadiidka kulligtay awaamir cusub ciidii fidriga oo runtii ah ciidaha waaweyn ee islaamka waxaynu ognahay dunidii inay haleeshay masiibo weyn oo dhammaan dunida oo dhan caam yeeshay sidaa aawadeed waxaa la joojiyey isu socodkii dadweynaha maadaama oo xanuunno aafahay ay dunida ka jiraan dadweynaha reer Somaliland gaar ahaan gobolkan Maroodi Jeex waxaan ku gelinaynaa inay guryahooda ku ciidaan munaasabadda ciidul fidriga isu socodkana la yareeyo dhalinyarada ciidaha u bixi jirtay gobolada iyagana waa la joojiyey waxa loo baahan yahay inaynu ka qayb qaadano dhammaanteen badqabka shacabkeena iyo caafimaadka ummadeena dhammaanteen isku naf kaliya baynu nahay nolosheenu way isku xidhan tahay waxa loo baahan yahay inaynu u fakiro si la xajecel ku jirto oo dadweynaha iyo dhammaan gaadiidleydu ay ka qayb qaataan in la yareeyo isu socodka ciidan baynu dhigi doonaa dadweynaha waxaanu u sheegaynaa goobihii lagu ciidi jiray dhan in ciidan la dhigi doono oo maaragtay ciidan joogo oo cid isu timaadana aan la ogolayn cidinaana isugu iman karin taas waa qodobka labaad gobolada la isuma socon karo nin waliba ha maqlo la isuma socon karo Hargeysa berbera uma bixi karto Boorama uma bixi karto Boorama Hargeysa uma soo bixi karto berbere Hargeysa uma soo bixi karto Burco uma bixi karto Burca berbera uma bixi karto Laascaanood uma bixi karto Ceerigaabana sidaas leey gobol walba gobolka kale uma bixi karo labada cishe ciida waa la joojiyay socodka iyadoo muhiimadda weyn ay tahay lana doonayo inaan isku sii u fahamno caafimaadka maaragtay iyo xanuunkan ka hortagiisa sababtoo ah ciladii xanuunkan waxay noqotay ama sidoo u fidayay waxay noqotay isdhexgalka bini'aadmiga ciidanka booliska waxaan farayaa meelihii aynu isla ogeyn ee aynu socaynay inay si adag u ilaaliyaan dadweynahana waxaan u sheegayaa ninka isku daya inuu ama berbera tago intuu Hargeysa ka tago ama uu gobol kale tago inaanu socon karayn lana qabanayo talaabo sharcigana laga qaadi doono waayo qofka waxaan u fahmaynaa inuu qofkaas dhag jalaq u siin waayay amaamirtii dawladda markana xubintii ciyaaraha iyo Sacuud Caawiif iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ka cusub dhanka sportska Sacuudi waa mahadsantahay